Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khayr soo dhawaada waa channelkiini oo ciyaaraha idiin soo tabi jiray iyo wararka. Maanta waxaa noo saaran Arsenal miiska. Arsenal iyo maxaa ka dhacaya? Waa ujeediin Arsenal sida ogtihiinba waa top of the Premier League ayada ugu horeyso. Arsenal marka playaal badan ayaa waxay ka aadeen World Cup-ka. Marka maxaa ka dhaawacmay? Maxaase la soo gudboonaaday? Arsenal waxaa ka dhaawacmay Gabriel Jesus oo ahaa big part oo wuxuu ahaa tiimka horumarkooda waday, ciyaartooda kala socodsiinayay, oo goolal dhaliyay, oo assist bixiyay, oo positionkiisa currently oo qof kale loo heynin. Waxa backup oo loo haystana uu yahay Nketiah. Nketiahna maaha qofka Arsenal u qaadi lahaa next level. Marka Arsenal suuqa ayay ka daba wareeganaysaa intaan January soo dhow sida ogtihiin oo maalmaha noo jiro. Marka ayay daba taagan tahay wararkaas iyo kuwa ka dhaawacmay iyo fixture-gaba waa idiin soo socdaan. Khayr kursigiina soo qaata, koofigiina soo qaata, hore ayaa u galaynaa ma istaagano. Khayr waxaa ka bilaabeynaa transfer window-ga iyo ciyaarta ciyaaryahanada ee dadkan ay dalbanayaan. Arsenal waxay aad ugu daba wareeganaysaa ciyaaryahan la yiraahdo Mikhailo Mudryk oo u dheelo Shakhtar u dheelo. Wuxuu ka ciyaaraa dhinaca garabka oo midigta ka ciyaaraa. Number 10 waa ciyaaraa. Waxay kaloo dalbatay wiil la dhahayo Zaha. Waa ogtihiin kan maanta ugu horeyso aan ka hadlayno, mar walba ayaa ka hadli jirnay. Crystal Palace oo u ciyaaraa, Premier League oo ka ciyaaraa. Joao Felix Athletic Madrid u ciyaarayo. Tielemans oo asna markii ugu horeysay ahayn iyo markii ugu dambeysa ma aha doon soo maleynayo ilaa Arsenal ay ka soo qaadato. Wiilkan muddo ay daba ordaysay. Haddii aan ka bilaawno Mikhailo Mudryk, ninkan Arsenal ayaanta aad u daba taagan tahay. Waxaa la isku fahmi lahayaa lacagta wiilka asiga waa rabiyaa player fiican waaye. Wuxuu leeyahay aniga Arsenal aan rabaa. Channel-ladooda waa support gareeyaa. Ninkan waa ilaa yaraantiisa ayuu support gareynayo. Wuxuu u baahan yahay inuu tiimka ka qayb qaato horumarka iyo ciyaartooyda oo wuxuu idilba inuu tiimku ciyaaro ayuu u baahan yahay. Laakiin waxaa la isku haystaa lacagta. Arsenal lacag badan ayaa loo soo bandhigay inay dhiibto, laakiin ma aha Arsenal lacagtaas lacag ay bixi doonto. Waxay leeyihiin waxaa ku rabnaa 100 milyan. 100 milyan. Arsenal waxay taagan tahay guri maal dhisi rabaa mise ciyaartooy la gadan rabaa. 100 milyan maxaa waaye? Ayada waxay budgetkeeda ay tahay inay ku qaadato 60 ilaa 55. Wiilkana waxay leeyihiin 100 milyan sidoo u rabo Arsenal ama Arsenal si rabta u rabaan. Anaga 100 milyan ayuu nooga baxaa. Halkaas ayuu warkiisu ugu dambeeyaa oo la isku haystaa. Haddii aan u gudubno Zaha Arsenal muddo ay daba taagneed. Arsenal waxay u daba taagan tahay waxaa waaye Zaha positionadiisa waa position hadda Gabriel Jesus ayaa ka dhaawacmay. Waxaa la ciyaarsiin karaa striker, la ciyaarsiin karaa. Waxaa la ciyaarsiin karaa garab, la ciyaarsiin karaa. Waxaa la ciyaarsiin karaa garabka kale la ciyaarsiin karaa. Waa nin aad flexible u ah oo Arsenal zaid u anfacayo position badan ka kaafinaya sida Gabriel Jesus. Gabriel Jesus sida ogtihiin Man City labada garbood waa u ciyaaray. Wuxuu ciyaaray striker u ciyaaray. Hadduu rabo number 10 uu soo dagaa waa build up player. Marka Zahana waa sidoo kale. Hadda haddii Zaha January ay soo qaadato Arsenal waxa waa hore u soconaya aaminsanaan. Hata Mikhailo Mudrykani waa ka sii adag yahay. Haddana waxa waa Premier League ka soo ciyaaray muddo badan oo joogay. Waa fahansan yahay geemasha kulul, geemasha qabow. Waxa waaye nin injirigiisa badan yahana ma aha. Marka aad ay u daba taagan tahay. Asigana qarashaadka iyo la isku daba taagan yahay. Inkastoo oo dhici rabo contractgiisa oo dhici rabo. Haddii aan sii gudubno waxaa kaloo jirto Joao Felix wiilka Athletic Madrid u ciyaaro oo ka ciyaara dhinaca garabka iyo number 10-ka, number 8 oo ka ciyaara. Waa asna mid flexible ay waaye. Laakiin ani ahaanteeda Arsenal ninkan xilligan la taagan yahay ninkan misdhahayo Arsenal positionada ay u baahan tahay nin cover gareynaya ma player fiican waa aad loo rate gareeyo. Laakiin currently waxa u baahanahay waa striker nin uu buuxi karo oo garabkan ka ciyaari karo, Martinelli dagaal geli karo, nin oo Jesus dhibaato u keeni karo dhihi kara hay anaa position ka tuura. Laakiin Joao Felix waa squad player waaye oo fiican oo horumar leh. Laakiin ma aha positionada hadda saas uga sii daba ordaysma. Ma naqaan waxay ku dhamaan doonto. Laakiin waa ciyaaryahan aad u fiican waaye. Waxaan rajeynayaa inay meel fiican ku dhamaato arrintooda. Lacagta la isku haystana waxa waaye aad u lacag badan yahay. Mudryk waa ka lacag badan yahay. Waa 100 and Arsenalna 5 sano soo socota 100 that means intuu dhiibeysa ma aha. Weligeed player 100 ma ka bixinin.
dhibaatada haysata Arsenal halaas waay. Player lacag badan ma laga bixiyo ade. Player waxaa laga soo bixinaya 50 milyan, 60 milyan, 45 milyan oo player fiican oo teamka oo anfacayo. Hadda ninka 130 milyan intay kasoo bixiyaan oo nolosha oo injury iyo Ingiriiska waa taqaanaa kabaa la iscunsiyaa waa la isbooba waa la iska dafa waa la isharantiyaa. Marka hadduu injury galo 130 milyan dhulka taalo le waay. Hadda Zinchenko aba se nagta ugu hayeen hadda banaanka yaalaba oo ilaa hadda Arsenal si fiican uguma ciyaarin. Waana 35 milyan laga soo baxshay. Marka Arsenal 130 milyan la isku haystaa miyay hore u tilaabsan doontaa Arsenal boorka iska jafi doontaa markii ugu horeysay ee player ka bixisay 160 milyan mise waxa way ka cagjiidi doontaa. Tielemans aan soo haray. Tielemans waa player aad u fiican oo Arsenal u feed gareynaya dhaxda ka ciyaara. Waxayna u rabaan in case oo Partey ama soo gaaro oo ka fadhiisto Lokonga maaha player lagu sii tashan karo oo maaragtay Premier League oo ilaa hadda 2 sano hal sano uu sii maraya nin lagu tashan karo maaha oo la dhihi karo ninkan levelka labaad u qaadi karaa ninkan dad waaweyn laga hor keeni karaa maaha. Waa yar yahay mana ahan talentigaas oo laga sii sheegana ma laha. Laakiin Tielemans waa nin oo proven ah waay oo la soo hubiye player fiican ah waay oo squadka oo ku adkeena. Ninkan lacagtiisa ma badno waa adii ilaa 20 ilaa 25 milyan waay. Lacagtiisa rasmiga lagu gadayo maaha laakiin contractigiisa dhacay that is why lacagtiisa u yartahay. Ninkan January waa free. Haddii 20kaas uu ku helaan ama maaragtay ka yar ay ku helaan ama freegaas ku helaan Arsenal aad ay u daba taagan tahay. Arsenal waxaa kaloo ka dhaawacmay haddaan aadna dhinaca dhaawacayaasha aan aadna dhinacaas waxaa ka dhaawacmay Nelson ayaa ka dhaawacmay Smith Rowe hadda soo ka cirbay Jesus ka dhaawacmay. Hadda waxaa is dheheen Gabriel Martinelli horaha loo tuuro Nelson garabkan la soo saaro intaas lagu sii baashaalo. Waaba Nelson aba xalay injury galaba. Walaahi haysto Arsenal waxay la ciyaar rabtaa 5 kulan oo soo socoto waa 5 kulan 4 kamid ah waa dab oo looma dhawaa karo. Gameka ugu yar oo isleenahay dhibco badan ee dhibcaha ka wada qaadan kartaa waa West Ham waay ugu soo horeeyo oo gurigeeda kula ciyaareyso. Brighton waaba la kari laayahaba waxa waay team kasta dhagay ku dhufanaysa hadda. Maalin hore Chelsea dhagaha ku dhufatay tiimo adag garaacaysa Brighton way adag tahay anaka taa wayna garaacday FA Cup-ka ayada naga soo saartay Arsenal ayada ka soo saartay 3 ay ku qabataa malaynaa. Newcastle ugu xigto home 5 kulan ugu horeysa ay Interna West Ham ugu horeysa home waaye. Brighton ku xigto waa away. Newcastle oo ayadana top 4 ku jirto oo maaragtay la celin laayahay ku jirto oo guriga Arsenal imaanaysa Emirates. Waxaa kaloo ku jirto Tottenham oo gurigooda loo socdo oo ayadana game oo aad u jilcan aan ahayn. Manchester United oo naga soo badisay oo 3-1 nagu soo qabatay oo gurigeena imaanayso. Dadkaan u jeed 5tan game-na Gabriel Jesus ku tashanaysid hal game kamid ah ku imaanayo waa 5 weeks waa asna 3 bilood iyo xogaa loo jaray injury waa qalina lagu sameeyay. Marka aqaare intaas waaye wararka maanta idin soo tabinayno maxaa leedihiin waxaan rabnaa inaan ogaano commentiga rabnaa inaan ku ogaano Arsenal player-yaasha hadda aan tirana midkee anfacayo midkee u fiican oo positionada hadda ka maqan ee Premier League is leedahay hore ayaa u sii socon kartaa midkee anfacayo waxaasoo dhan waxaan rabnaa commentiga inay nagala soo xiriirtaan waxaan leeyahay intaas iyo mac salaama.